annagu gashkii dalkaanahay gaashaanka carankay gorgorkiyo labada waran xidigtu guragagaas gidi ciidamada gayigeenu leeyahay kasiman magacagu annagu gaashaanka carankay gorgorkiyo labada waran calimuhu ugabe xidigtu guragagaas kuwa loo gashaanaye kuwa loo gidi ciidamada gayigeenu leeyahay kasiman magacagu annagu gaashaanka carankay gorgorkiyo labada waran calimuhu kuwa loo gashaanaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أخيارا وسلم تسليما كثيرا أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الله أفكا يقبح خير غبا كدو الله ربك يوم هنوني إله خير بان كابرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هل كان كسلام يا دمان أمد الصوماليات دافها عالمك كوكلا نول ما aragtay dibad iyo daakhilba wadanka dibadiisa iyo wadanka gudihiisaba waxa waaye khayr iyo abshir baan rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaad iyo hanuun iyo nabad qab iyo dambi dhaaf baan ka weydiisanaynaa maytideenni oo dhanna allah u naxariisto intii dhimatay oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ilaahay qabri cadaabka ha uga naxariisto ilaahay kitaabkooda midigta ha ka siiyo muuminiintii dhimata waalidkeen ugu xaq dhow yahay إن شاء الله بإذن الله أننا إلهي قد أشهد أن ما في دمايو إلهي وحن كبر يا الناس سبحانه وتعالى إنو ماركتي إنو دم بدافو دم بجن يا دم بجي والد كان بدافو آخرة إيه الدم بإلهي إنو نون حريستو إنتو دم بدافو إلهي ونقدر توحيد كي توفيق الله نقدو إن شاء الله بإذن الله وده مستقيم كإلهي ونقدو إلهي ونودم بداف إنت سوى دم بابينا إلهي ونودم بداف إلهي ونودم بداف من كويدي سن إلهي ودم بداف عافية عافية ما بان كويدي سني إلهي وربك يا وحن كابرنا ربي سبحانه وتعالى رب العزة جل وجلاله إلهي ودنك يا قبد بادي إلهي ودنك يا قبد بادي إلهي مضى يا قبد بادي إلهي قرنك يا قبد بادي إلهي وربك يا مدح وينها يا ماملك يا دولده
حكومة يدا أودن ربك يو نو بركة ومد خير أبتر نوغد إله عدو نغا قبو إله يو ربك يو دولة يدا يدتك يدين يدا يدلك يدا ربك يو نو بركة ونو بدبادي وعدو نوغا قبو إله عدو نوغا قبو إله عدو نوغا قبو إله عدو يغا قبو إله عدو يغا قبو يا رب إله قعمان كوتا جنا إن إله عدو يغا قبو إله يو ربك يو وحنا دبها يو ندع دعينا هيا وكان تاسعنتا أدوك أبنكو أبو دينكو هيستا بان إله يو كاغا دعورنا ربي يو أدو مدادان دعوة كامان هاي إله أدو مدادان نقعشو وإله أدو مدادان ربك يو شركو ده هنسو قارسينو شركو ده إله يغكو علي markaan intaas uga baxo waxa weeye oo aan ka hadlayaa hadda caawa maxaan ku iraahdaa waxyaalo badan baan rabay inaan ka hadlo waxaan ka hadlayaa maxaan ku iraahdaa dhibaatada maanta waddanka taalla waxaan ka hadlayaa horumarka iyo wanaagga iyo ciidamada iyo qaranka yagu wuxuu gaaray iyo mataqaanaa hanka aan yeelanay iyo sida maaragtay maanta aan hidideela u leenahay oon dowlad isku hadlayn karno aan haysanno ciidanna difaaci karoon isku hadlayn karna aan haysanno muxuu ku iraahdaa ciidamadii la dhisay maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha iyaga sharafta badan xafidullah uu maaragtay noo sameeyey ciidan difaac ah oo maanta haddii meelna la kaga soo duulo jilibka u dhigahayo soo majeystayaasha ciidamada xoogga dalka difaaca xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyaan u dirahayaa meel kastoo ay adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ilaahay ha idin samata bixiyo cadowgiina allah cagta hoosteeda geliyo waddanka iyo annaga iyo nafteen iyo dalkeen iyo diinteennaba inoo difaaca ilaahay kor ha idinka dhigo xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka yaga qaranka uu hogaamiyo odawaa Yuusuf Raage generaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyaan u dirahayaa sida halaasiga ah oo cadaaladda ah oo ciidanka u maamulahayo waa ugu hambalyaynayaa ciidanka yaga tayadiisa iyo tabartiisa iyo awooddiisa uu maaragtay ku muquuninahayo cadowga na waa ugu hambalyaynahayaa ama ha ahaado mataqaana mid shisheeye ama ha ahaado waxa najaasta ah oo indhaha xiran oo shayaadiinta alkhawaarij ee mataqaana indhaha duubto dadka baabi'inahayaba ilaahay waxaan ka baryahayaa inuu ka adkaysiiyo ay ka guulaystaan oo goob walba ka qabsadaan biidni illaah waxaan kaloo u hambalyaynayaa dowladda madaxweynaha iyaga maxamed cabdullaahi farmaajo xilka weynuu iska saaray ciidanka iyo badbaadada waddanka oo dhanba ciidanka Soomaaliya iyo badbaadada waddanka oo dhanba madaxweynaha iyagu xil buu iska saaray waa ku dadaalay waa ku tabcay waa ku mintiday aad iyo aad baan ugaga mahad celinaya madaxweynaha iyaga maxamed cabdullaahi farmaajo alla ya cisig baan ku leeyahay jiroo joog soo noqo adoo nabada biidnillaah ilaahay idankiisa iyo awaamiirtiisa kos soo noqo adoo nabada noo soo noqo wax kale ma hayno oo no hogaamiya insha allah biidnillaah wuu soo noqonayaa insha allah biidnillaah ilaahay hungana dhigi mayo wax kaloon aamina iyo wax kaloo waddankii lagu aamini karaa ma joogaan allay ka tahay inayna joogin waxa weeye markaa waxaan leeyahay oon kaloo u hambalyaynahayaa ra'iisul wasaaraha yaga cusub maxamed xuseen rooble oo intii yaraydoo hadda wiigga iyo xoogaaga ahaydoo uu joogay guulo waaweyn soo holiyey isagoo ku dhawaaqay in mataqaana jidadka xamar oo dhan la furo oo dadka cadibaadda laga qaado 8 sano cadibnaa 8 sano xilligii waxaan u malaynahayaa xasan sheekh maxamuud baa wadooyinka waaweyn oo wadnaha magaalada la xira ilaa hadday xiran yihiin madaxdii hore xaqiiqatan ra'iisul wasaarihii isaga ka horreeyey ma uusan ku guulaysan inuu maaragtay inuu furo kuma guulaysan waqtigaas de waxa weeye nasiibkiisa ma ay noqon waxaa ku guulaystay Rooble ra'iisul wasaaraha iyaga Rooble ku guulaystay mudane maxamed xuseen Rooble waa ugu hambalyaynayaa waxaan kaloo ugu hambalyaynayaa dowladdayada iyo xukuumadda maxaan ku iraahdaa Rooble oo ku dhawaaqay si toosa in la isaga celiyo oo loola dagaalo ciidanka dowladda Kenya ciidankeeda xuduudaha dhooban ee Jubbaland iyo ciidanka calooshooda u shaqaystayaasha oo ay Kenya ku shaqaysato oo Axmed Madoobe ciidankiisa maleeshiyadiisa dhagaha in lagu dhifto waddanka laga xoreeyo dowladdayada iyo ra'iisul wasaaruhu waa ku dhawaaqay waa ugu hambalyaynayaa dadaalka badan oo ay samaynayaan dowladdeenu insha allah waddanka way wada gaari doontaa mar haddii halkaa laga soo jeesto oo xuduuddaas ilaa 2008kii
gumaadka iyo dilka iyo dhaca iyo kufsiga iyo hoogga iyo ba'u ku socday iyo barakicintu mar haddii la qabto maxaahayeeto jubbaland gobollada kalena waa la soo gaarahaya insha allah biidni illah hambalyaan leeyahay dowladdayada sharafta iyo karaamada mudan naga badbaadisay maaragtay cadowgii naga badbaadisay bahdilkii naga badbaadisay musuq maasuqii naga badbaadisay ciyaaladii carrada ilaahay ku xiraayo mataqaan dhallinyarada ahayo kumayaalka ahayo ay soo daysay aad iyo aad baan u hambalyaynahayaa dowladdayada jiroo joogaan leh isagama hambalyaynayo wax muuqdayna tustay oo bikiyaara ahaan aragnay wax bikiyaara ah bayna tustay marka waxa weeye qofku hadduu wax qabto waxa la yidhaahdaa waad mahadsan tahay qofaan bini'aadanka u mahadniqina ilaahay uma mahadniqo waa kow qof kasta wuxuu qabtay waa lagu ammaanaya wuxuuse qabanna waa lagu ammaanaya habayn horay ahayd markaan dowladda ku dhaliilahayay inay ka seexatay maaragtay gobolka jubbalandna ay ka seexatay wiigga horay ahayd maxaan ku idhahdayay ciyaalka la daldalahayana ay ka seexatay dekadaha la daldalahayana ay ka seexato loola wareegahayo oo lagu hayo waa lala wareegi iyo waa la qaatay iyo waa la qolo kalea loo sii gudbinahaya borobbiyo wiiggii haddeer ina dhaafay baan ka hadlahay wixii dhaliilana waa soo jeedinaynaa annagu arladan annagaa markhaati ka ah wax allaaliyo wixii dhaliil ah ummadda soomaaliyeed iyo shacabka waa la wadaagaynaa si ay maaragtay taxadar badan u sameeyaan uga feejignaadaan isugu duubnaadaan u midoobaan waddankooda inay badbaadsadaan u midoobaan waxa weeye gumaysiga wax ka xun ma laha dadkii la gumaystay baa og dhibaatada uu gumaysigu leeyahay laakiin dadka soomaaliyeed NFD iyo Jabuuti iyo mataqaanaa Soomaali galbeed saddexdaas meelood baa la gumaystay dadka ku dhaqan oo ku nool baana og cirqumada ay leedahay gumaysigu laakiin wadamada intooda kale gumaysiga waa horaa laga kiciyay oo hadda waaba iloobeenba marka waxaan isleeyahay shacabkayaga iyo maamulada qaarkood waxay u xiiseen gumaysigii ingiriiska iyo talyaanigayba u xiiseen baan isleeyahay maxaa daba dhigay cadowga waddanka ku soo haleelaya maxaa daba dhigay dadka baddayada iyo biriga iyagaba raba inay qaataan maxaa daba dhigay dadka dahabkayaga iyo adduunkayaga iyo daldalanahaya maxaa daba dhigay baladba waxa weeye marka waxaan ka hadlahayaa oo aan hadda ka hadlahayaa maaragtay nimcadii waddanka oo nimcoolaydii waddanka waa la daldalahayaa buurihii waxaa laga daldalahayaa dahab iyo dheeman iyo qalabaanna weligeen arag oo gaaladu aqoon oon magaciisa la aqoon oo adduunka aan lagu arag yaa laga daldalahayaa weliba buuraha Puntland baa laga daldalahayaa marka waxa waaye buuruhu aynoo dambaynahayaa waxaan idin dhegaysiinahayaa faarax macallin oo ka hadlay sida ay madqaala darati u tahay baawar fuulka uu leeyahay maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu wax walba ku maquunin karo oo dhihi karo 24 saac xalanaha la ii baneeyo oo dhihi karo 24 saac ciidanka amisom ha layga saaro dhiile lama gelin waddankana anaa xukuma waagii kumeelgaarada iyo kumeelgaarka xataa waagaanaa lahaynoo mehiga iyo minisanaawi ay carrada xukumahayeen oo ba'sanahayeen haddii la saxiixay oo la keenay naw anaa diiday ma doonayo buu dhihi karaa madaxweynaha iyagu powerful buu leeyahay marka waxaan rajaynayaa inuu isticmaalayo madaxweynaha iyagu power fellow safetiisu inay laba af leedahay safety maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyaga iyo xukuumadda iyada oo dhan baa dowladda iyada qaranka safetynu laba af waa inay leedahay voodkan wax macnaa ma laha guddiga doorashada baa ku filan waxa meesha yaalla waddanka difaaciisa iyo waxa yaalla iyo mataqaanaa cadowga in laga saaro waa in waddanka la difaaco oo cadowga laga saaro voodku wax dhiba ma laha rag baa kambayn galaya rag baa kambaynkaas mataqaanaa madaxweynaha u galaya kuwa kale oo soo sharaxaya u galaya guddi baa loo sameeyey guddiga xalima yari baa haddii la raba joogo oo laleeyahay gala shaqada waayo xaq bay u leeyihiin inay galaan guddigan hadda maamul goboleedyadu ay codsadeen guddi fiicanba ma aha waa guddi feyg ah guddiga xalima yarey iyo guddigii doorashada madaxa bannaanaa baa waajib muqadisa in loo dhiibo oo doorashada loo dhiibo wax muhiima marka ma laha 100 guddi baa la sameeyey kii xalima yari baa jooga dowladdu marka inay maaragtay culayska saadho waaye difaaca waddanka badahan la boobahayo ay baaq madaxweynuhu ka soo saaro wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo la leeyahay
dekadaha badaha soomaaliya lama taaban karo lama taaban karo dhinacaas iyo maxaan ku irahdaa somalilandna waa la sheegahayay waa la soo degahayay waa la soo dejinayay puntlandna waa la soo dejinaya dibibol waa laga saaraya mid kaloo dhil cusub oo yuhuud wadato baa la keenayaa masaari iyo yuhuud wataan baa dani diyaarinayaa kii hore imaaraadna inuu kansaluu rabaa kolle ku dhawaaq laakiin mid ka daran oo ka khatarteeda leh oo nimankan mataqaanaa falastiin gubaystaa ay wataan buu soo wadaa dani baraka male marnaba baraka male dani waxaad garanaysaa dhibaatada waddankeenna lagu hayo giriifka lagu hayo xasuuqa lagu hayo hantidii maguurtada ahayd ee ilaahay dhulka hoostiisa noogu beeray ee buuraha hoostooda noogu beeray baa la daldalahayaa 24 saac gobol kasta oo soomaaliya waa laga galahaya ilaa iyo wixii beledweyne ka soo rogan ilaa baydhabo waxaa ka daldalahaya mataqaana ilaa iyo hobyo wixii saa uga soo rogan waxaa ka daldalahaya xalane nimanka fadhiyaa daldalahaya 12 habeenkii diyaaraduhu ma istaagaan xalane saasay u galoobaxayaan baabuur baana looga soo raraa ballidoog baa lagu soo daldalaa dahabka iyo nimcooleyda iyo dheemanka iyo luulka iyo dhagaxyo magacoodii la aqoon waayey iyo ciid iyo beliya baas baa laga gurhaya waxaa laga dhoofiyaa meesha la yiraahdo xalane laga dhoofiyaa baabuur baa habeenkii ballidoog ka soo qaada habeenkii intii lawdoo dhan baa halkaa diiqalyaynahayaan baabuurta saa isu daba maraysaa ciid baa la rarayaa ciid kismaayo xataa waad maqlayseen ciid baa laga raraya hadda dowladda iyadiyo joogta in dhagaxii iyo buurihii markii la dhammeeyo oo kalluunkii badaha ku jiray la dhammeeyo oon baarlamaan iyo dowladu ka hadlaynin haddana in ciiddii dhagaxii iyo dheemankii iyo ciiddii iyo dahabkii la daldalo oon dowladdu ka hadlayn wax macquula maaha wasiiray wada leedahay maanta wasiirka badda wasiirka biriga wasiirka buuraha wasiirka webiga wasiirka aaway wixii wasiiraha xagay ka baxeen maxay qabtaan maxaa loo magacaabay maxay cashuurta u qaadanayaan shacabka ee hodheelada u degan yihiin wasiir walba shaqadiisa waa inuu qabsadaa wasiirka arrimaha gudaha waxa weeye waa dahabka iyo adduunka la daldalahayo waa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka macdanta iyo batroolka baa ku shuqul leh wasiirka gaadiidka iyo badda baa ku shuqul leh intaasoo wasiira oo lacag ku qaadata oo cashuurtii masaakiinta daldalaysa aan shaqana noo qabanayn waay ay mushaarka u qaadanayaan waay dowladda iyadaan weydiinahaya sababta ay mushaarka u qaadanayaan markee shaqadoodiiba kama soo baxayaan hadda wasiirada cusub oo hadda la magacaabay anigu kama hadlayo wasiiradii horaan ka hadlaya iyo kuwa hadda soo socda in lagula xisaabtamaayo nin walba meesha loo magacaabay inuu ka shaqo keeno oo ka niib keeno isagoo si hufan oo wanaagsan dadka ugu shaqaynaya isagoo mataqaanaa musuq maasuq la'aan dadka ugu shaqaynaya waa in lala xisaabtamaa nin walba meeshii loo dhibo waa in lagula xisaabtamaa oo haddii baarlamaanku xisaabtami waayey ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa inay ku xisaabtamaa kabisa iyo wasiirka maxaa la yidhaahdaa madaxtooyada waa inay kula xisaabtamaa waa dowlad aan isxisaabinayn shaqaalaheeda xisaabinayn oo mataqaanaa shaqadii loo idmaday aan xisaabtanba isugu imaanayn oo meelay u socoto iyo meelay ka socoto aan la garanayn macquul maaha mana shaqaynayso isxisaabtan baa dowladda looga baahan yahay baarlamaankii hadduu gabay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka baa mas-uuliyadda iskale ummadda tan waa in lala xisaabtamo wasiirka badaha waa inuu ka hadlo oo wareegta dowladda madaxweynaha u gudbiyo wasiirka badahu wuxuu u gudbinayaa baarlamaanka waa ansixinayaan madaxweynuhu u gudbinayaa shaqadiinna inaan idiin sheega waay because ma garanaysaan sida maareeyihii dacwoonaya inta shaqadiisii gabay hanuunin baa loo diray hanuunin hal hamayna ummadda ma u hanuunin markaasuu hadda dacwoonayaayo mataqaanaa rooble uu afka ku soo taagahayaa ninka la dhaho maxamed cabdi maxaa la dhahaa maareeye waa qaldanya meel baa laga bedelay meel baa loo bedelay butulli waa inuu sooran maxaa dhali dhaxal buu u leeyahay mise hooyadiisu ka soo dhaxal gurigiisibaa meesha soo dowlad ma aho qaran ma aho midba maalin loo dhiibi mayo xukunka wasiirada in lala xisaabtamo waayo wasiirada badaha xukuma iyo wasiirada buuraha xukuma wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka mataqaanaa badaha iyo gaadiidka waa hadda kabacdi il gaaraan ku fiirinaynaa kuwii hore waana dageen
waana khayaaneen hawshoodii kama ay soo bixin waa naga shaqaysteenoo nooma ay shaqayn wasiirada cusub waxaan ka rajaynaynaa oo aan ka codsanaynaa inaynan naga shaqaysaneen noo shaqeeyaan taasaan ka codsanayna waa inaynan naga shaqaysaneen noo shaqeeyaanoo waddanka iyo dalka ay u shaqeeyaan oo badbaadiyaan dekadaha iyo badaha iyo buuraha iyo kulli waxa la daldalahayoo dhan oo nimcoodadeed laga guranayo oo dowladdii iska dhex fadhido oo wasiiradii fadhiyaan oo baarlamaankii usa hadlayn oo shacabkii mudaharaadayn reerba ow yaa kule war waddankan yaale war nimcada la daldalahaya yaale war maxaa dadkiinni gaajo u baktiyey macluul buu u baktiyey faqri buu u baktiyey wayaga waddanka ka cararaya wayaga caawa haddii markab loo keeno la dhaho soomaali inta gudaha ku jirna soo gala waa gelayaan dibadday aadayaan oo maxay u cararayaan shaqa la'aan iyo baahi iyo caafimaad la'aan iyo nolol la'aan iyo mataqaana horumar la'aan bay la cararayaan dahabka laga gurahayana bardhey soomaaliya 100 milyan oo dahaba yaa buuraha keliya buuraha puntland keliya laga gura iska daa meel kale 100 milyan by mouth dadkoodiina waa qaxaya waa baaqtiyo waa baabaa canshuurtii gabdhaha yaanyada gata laga qaadaa kunjibaar looga dhigahaya bardheyna 100 milyan baa laga saaraa ee gobolka puntland bardhey oo dahab iyo dheeman iyo balaayo kale oo la garan waayo dheemankaba ka qaalisan marka waxa weeye waa ayaan daro nasiib daradii adduunka ugu weynayd weeye nasiib daradii adduunka ugu weynayd weeye dad dhulkoodii buuxo oo dheemanku saa u daadanayo oo habeen iyo maalin dheemankii la daldalayo oo mataqaanaa diyaarado lagu daldalayo diyaarado oo iyagii macluul u baktiyey oo iyagii gaajo u baaba'ay oo iyagii mataqaanaa tuugsanahaya oo caalamka ilaahay u cararaya adduunyada lama arag lamana maqal lamana sheekayn ma garanaysaan horta marka surucaad iyo qaracan iyo caloolxumo baad u dhimanaysaa markaad aragto dahabka laga daldalahayo waddankayaga markaad aragto dahabka waddankayaga laga daldalahayo dheemanka adduunyada ilaahay wax haysta adduunyada ilaahay wax haysta ma aanu arag adduunyada ilaahay wax haysta ma aanu arag noocaas u fiirsada soomaaliya bal noocaa fiiriya bal dahabka noocaasa fiiriya bal dahabka noocaasa miyaad weligiin aragteen miyaad aragteen weligiin bal waxa kan daya bal waxaan daya puntland laga daldalahayo bal waxaan puntland laga daldalahayo daya miyaad weligiin dhagax noocaana aragteen miyaad weligiin dheeman noocaasa aragteen waa ayaan daradana haysata nimanka jaajuusiinta ah ee cadowga yaga u jaajuusiinta waxaasay raqiis ku gataan 100 milyan baa calaa bil ilaahay keenay baa laga rabaa dheemanka dhagaxa laga soo gurahayo waxa laga soo gurahayo mataqaana bal eega waxa kan bal soomaaliyay waxa kan eega bal idinkuna macluul baa u baktidee bal waxaad leedihiin mataqaanaa shaqa la'aan baa la dishay bal waxa dhulkeenni laga gurahayo eega bal waxa dhulkeenni laga gurahayo eega inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun igaba dembe inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun war bal eega waxa kan war bal eega waxa kan war bal eega waxa kan ma waxaanoo kalaad aragteen wax haysta ma waxaa dhagaxaan adduunka weli lagama helin ma dheeman baa ma dahab baa ma nooc hadda cusuba soomaaliya adduunka u soo baxay baa lama yaqaan waxa haddeer wiigii dhoweyd baa laga rarahayey maxaan ku idhaahdaaye garow waa laga rarahayey oo xoogaa cashuura intay ka qaateen baa kambani oo mataqaanaa ay magaciisii xukumo habaarqabihii muxuu ahaa maxamuud shido oo imaaraadka baa loo rarahayey waa kaa waa kaa bal waxa kana eega bal waxa kana eega bal waxa kana eega bal nooca waddankeenna yaalla daya bal imaaraad baa daldalanaysa bal madaxdayadii waa ka aamusanta bal dowladdii waa ka aamusanta niman waxa haysta burcad baa haysata burcad puntland baa haysata oo waxa weeye kuwa cuquba ku dhacday oo ilaahay uu hankii ka jebiyey oo imaankii ka qaaday oo waxa waddankooda ka soo baxaya aan calfanayn oo iyagu inay beec geystaan la rabay baa wiilal xunxun ahoo arday ah oo imaaraad ah baa dheemankoodii saa u daldalanahaya ayagiina waa ka qatayin kan eega kan waa cagaar caalamka meel laga helay lama yaqaan
ودائما كاكليا وحو يهي 400 مليون كاكليا 400 مليون بل ايغا بل كنا ايغا إلهي دادكو كقرية خيرات كودنكو ديالا oo imaaraad jaajusnimo u aadaya oo mataqaanaa madaxweyne inuu ka dhiga uhuru u aadaya bal fiiri waxa puntland ku dhex jira bal waxa waddanka ku dhex jira eega weli caalamka laguma arag dheema noocaana absolutely waa 400 milyan dheemaka cagaarka hadda u jeedaan kaliya haye luulkiina waa kan luulkiina waa kaa war si fiican ma ugu jeedaan waa kaa luulkiina وكا صوماليي هنتدي نوا جدان إمارات بدل دانا يوداني با أصحيح أرن شام با أصوغنا شير باديها حبد بلا لدعا يهدي نيخنها بل waxa wadankooda yaalday 3 cashuur ay ku soo rogeen 3 dhabal bay cashuurtii ka dhigeen yaanyadii gabdhuhu gadayeen waxaasana bal kana eega miyaad kana garanaysaa miyaad noocan weligiin aragteen Soomaaliyey gabal baasu idiin dhac إيمان كبا الله كقاضي maxay tan nabcadii wadankooda uma jeedaan facooda daldalana haya tuugsi bay ku jiraan dawladda Ibrahim Nacaawi beesha caalamku in Nacaawi xaqow Nacaawi balkanda waa dheemanka madow inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Soomaaliya ila arka wadankeeni waxaas laga daldalahaya waa buuraha almadow waa buurihi galgala waxa la daldalahaya ilaa 2000kii ما لا دلدل هي المذوبة واحد لوجي من دائما عن ولقي العرق ذهبا ولقي العرق لول عن العرق نوع كلا وحي هي عن العقوم أيه بل كنا كهذا بل هذا كنا كهذا وحاصل دائما ودن كينا القدر هي وعلمذو ما هي لما بيكون الله مثل سنك بيكون الله أيه كنا إيجا بل واحد دائما هالكاس يالضيع وكاقتنها عذر إيا قاچانا دميجي اسمتان لما هايسانو وحبرشا ما هايستان شعب كياغو وحي عنان ما هايستان حوغاقي اي شقين جيرين واللقو قاليي عشورتي ما صدح دبال لو قدقا سحير بير ما بابع شي هل دقح باكو فلان هل دقح صوماليو دنا لما دقح باكو فلان وكيبا 400 مليون وايا كيبا بالنوع عندي والنوع عد ودائما كعد ودائما كمدو ودائما كعقارك ودائما كبلوغا ودائما كجدودك أفرتبا وكوشران أفرتبا الصومالية قبل باسكودا وكا ودائما كعدا ما حدا حيا ودائما هي كم براشيد حلا ايغا بالبيت كان هذا براشيد حلا miyaad weligiin kaa aragtee kaasu intuu jooga ma taqaaneen dhibicda yarta oo buluuga halka dhibic oo yar oo buluuga waa 400 milyan okay min nalaha jooga min nal baa jooga nal waa dheeman nal ah ودغخ iyo dheemanka iyo dahabka iyo luulka iyo noocan weligood la arago magaciisa aan aqoon baa laga helay Puntland waka shilba uma baahna warshadba uma baahna waa hore ka jarjaro ka gado waka waa idinku soo celinaya caawa isagaan u soo gala dheemankiina la daldalahay reer Puntland qabal baa soo idin dhac waka ninka daniyo dabada ku wadataan waxaasuu tartiib u iibsadaa madqaala daratibu siista xataa waduu qiimahooda siisan lahaa maciil baad qabi lahayd 100,000 baa laga siiyaa 100,000 400 milyan 100,000 buu ka qaataa asaga iyo aranjan haye kana waa orange waa dheeman orange bal eega inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaa wada ummadaan umaqad dhaxalkoodii waa la qaata إلى وضع أمدان دحال كودي والله قاتا بل كنا إيغا وكا قبل باس با ودعي أمدي صوماليات دولة يد وحاسو لدلدلها يورو ما هيس حمر با إسكفر دا ورو ما هيسو بوريهنا وحا لغا دلدلها يا الدنيا دا وحا لأرق والله مقال با لغا دلدلها مد لنو عمالي
mid la nooca male 12 nooc oo dheeman ah baa laga helay calmadow dhinaca shishe oo mataqaanaa waqooyina waxaa ka daldasha muuse bixi dhinaca sokana deni baa ka daldasha shacabkiina waa ka qatanya askartuna mushaar ma qaataan gabal baasu idiin dhaca ku dowlad goboleed warbal eega warbal ila arka hoggaan war yaa soomaaliyahay war aawa reer buntlandow war reer buntlandow indhali dhegeli labada indhoodna waa laayihiin labada dhagoodna waa laayihiin silca idama loo saxariir u leeda caku reer buntland warbal eega waxa dhagax laydinka gurayo kan waa luulkii weeye dahabkii waa soo dhaafnay dheemankii waa soo dhaafnay mid nooc kale waa soo dhaafnay waa kana waa luulkii kaas aad iyo aad buu qaali u yahay bal fiiri waxa yaryarkaa oo cagaarkaahoo la helay bal fiiri dhagaxa ku jira buuraha galgala iyo maxaanku irahdaa iyo calmadow bal fiiri buuraha bari iyo sanaag waa blue waa green baan leeyahay green diamond waay burka yarka aha soomaaliya oo dhan ku filan intaa wiilku calaacasha ku hayo baa soomaaliya oo dhan ku filan calaa xabo waa 400 oo milyan soomaalay gabal baasu kuu dhac soomaalay haye noocaana ila arka hadda bal noocaana ila arka ilaah baan idinku dhaarshay waddanka waxa laga daldalahaya eega war ilaah baan idinku dhaarshay waraawe war farmaajow war gobolka buntland adduun baa yaalle u gurmo war ciidama gee war haram cadiyo gorgorgee war xoolaha caymiya war dheemanka caymiya war dani lama la hadlaayo dani isagaa qaata keligiisaa qaata 100,000 baa halkii dhagax wuxuu joogaa 400,000 100,000 baa laga siiyaa 400 oo malyan haye bal midkaan day weligeen ma aynu arag gaaladu xataa nolosheeda ma arag war maxaad u jeedaan war maxaa idiin baxay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wa inaa manaa dhammayn kara caawo dhan bay soconayaan inta nooc laga helay wiilasha yaryarkaa 200 baa la siiyaa 12 maalintiina buurtay fagahayaan qabdhe maqribkii waxay keenaan hal diyaarad oo dheeman iyo dahab iyo luul iyo adduun iyo wax la kala garan waaye $200 baa la siiyaa wiilasha yaryarka $200 baa la siiyaa magac baay waa kana dahabkaas isagoo saa u samaysan oo tabnigaas dahabkii u ah oo garoosa ah oo aan warshad u baahnayn calmadow baa laga hela waa dahabkii oo aan u baahnayn in la sameeyo la shiilo oo biyo la dhex gasho wakaa waa samaysan yahay buraha hoosteeduu jiifaa haye reer buntland waxaasaad ka qatantihiin markaasaad qabiil ku raacaysaan xukuumadda xunta ahay haysata xukuumadda xunta ahay garowa qabsatay waxaasoo dheemanaa laydinka daldalahaya reer buntlandow labada indhood baa laydinka tuur dhagaha iyo indhaha beela caqliga beela idiin ducayn mahaya inkaaro idinku dhacday waxay iska adeejiyeen aranjan iyo deni bay iska adeejiyeenoo mooraduugay oo dhaxalkayagii la baxay oo ummadda soomaaliyeed dhaxalkeedii la baxay oo mataqaanaa dhaxalka awoowayaashaya la baxay oo lacag yaroo masqaala darantii ay siisteen waxaasoo dheemana waa dhagaxii madoobaa waa greenkii waa mid iskugu jira brown iyo green waa balaag kii balaag ahaa ee asliga ahaa wakaa dheemankii madooba caalamka lagama helo caalamka lagama helo reer buntlandow ma ujeedaan kulli waa dheema ilaahay waa kanigu ogyahay kulli waa dheema waxaasaad u jeedaan waa wada dheema buuraha calmadow baa laga soo guray waa wiigga hadda dhammaaday madhaydeedii baa lasoo daldala ciyaalkii soo daldalhayay baa noo soo sawiray oo taleefon kula hadal oo noo sheegay ma garat halkii wiigba hal diyaarad baa laga raraa awal la galgalaa waxa la daldalhaye ilaa 2000kii 20 sano baa galgala iyo buurihii bari laga dhameeyey dhab waa la xaaqay hadda calmadow baa la galay dhinacaasna waxaa ka gurta habarqabaha muuse bixi oo waqooyiga xigta sanaag buuraha calmadow dhinaca xagga soo xigta puntlandna
dani iyo aaranjaan baa gurta ummadiina waa baaba'do gaaja isku waraysata dowladdii kama warqabto waxay og tahay ma laha bad la dhammee buura la dhammee adduun la rog ukumihii la guray dowladdii xamar bay fadhidaa 70 wasiir baa maalin dhawey dowladdu soo magacawda roble ra'iisul wasaare roble 70 wasiir war maxay qabanayaan gabigoodaba 12 wasiir baa nagu filan saa waa xamar kaliya joogaan maxaa canshuurta dadka intaas oo wasiirre ah loogu soo qabanaya maxay qabtaan kuwii hore wax ma qaban kuwii ka soo horeeyay wax ma qaban kuwii ka soo horeeyay wax ma qaban mid walba 100 wasiir buu keenayaa mushaarkiisu meesha ku qaataa dadkii u shaqayn mayo shacabkii u shaqayn mayo annaga nooma shaqaynayo isaga isu shaqaynaya waa naga shaqaysanaya waxay qabteen lama hayo baylan ka haynaa wuxuu qabtay caar waa wasiirka kale oo wax qabtay halla ii soo sheego hebel halla yiraahdo hebel ده waa wasiirkee hadla war waa wasiirkee ma garanaysaa ninka la yiraahdo cabdiraxmaan bayle ayaa nin wax qabtay aanu aragnay annagu ma garateen 70 wasiir buu daraad soo magacaabay wasiir ku-xigeen maxaa la yiraahdaa xoghaya miyuuha mise maareeya wax saasa wasiir walba laba daba socota waxay qabtaan malaha mushaarka shacabka unbay meesha ku qaataan bal hadda xukuumadda uu soo dhisay maxamed xuseen roble ma dhaliilaya anugu wasiiradii horaan ka hadlaya wasiiradii hore ee 3 sano iyo 8 bilood joogay bayla ka shaqeeyey bayla ka shaqeeyey wax ay shaqeeyeen iyo wax ay qabteen midna lama arko hay maxay qabteen wasiirka hawada iyo cirka iyo gaadiidka iyo diyaaradaha wasiir Omar maalin walba korkiisa jawaasiistu madhaa hawadaysa u dul madhaa hal diyaarad intuu halaw kula hadlo ma dhaho jaajuuska ad sidid Nairobi ku celi ama xamar ka soo deji ma dhihi karo he can't ma dhihi karo uhuru buu ka cabsanaya ma dhihi karo he can't okay wasiir walba meeshii loo dhiibo hadduusan ka soo bixin meel walba maxamed cabdullaahi farmaajo xafiis walba tegaya wasaarad walba ma isaga tegaya meel walba ma isaga taagnaanaya meel walba ma isaga ka shaqaynaya wasiiradu waa inay shaqeeyaan baarlamaanka waa nagaba baarlamaanka soo socdaan rajo ka sugayna iyo wasiiradan hadda jooga anigu dhaliili mahayo laakiin waxaan u dhaliilhayaa kuwii hore sidoodii ha noqonina wax noo qabta ha naga shaqaysanina qaaf rabbuka kitaabbaad madheena ilaahay ka baqa u shaqeeya ummadda waxaan aaminsanahay oo aan aad u aaminsanahay oo aan aad ugu rajo weynahay ninka la yiraahdo iiken ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed xuseen roble waxaan aaminsanahay nin wadani inuu yahay guri wadani buu ka yimid rug wadani buu ka soo jeedaa rug wadani oo la yaqaan oo caana oo diiwaanka waa hore gashay waa hore ayuu ka soo jeedaa I believe ninkaasu marka inuu isbedel keenayo I believe wadaninimo iyo dadaal iyo hufnaan iyo musuq la'aan inuu keenhayaan hubaa rugta uu ka soo jeedaa rug wadani ahay waa lagu yaqaan bogay ugu taalla yaa ka tiri kara nafay ninku doonay kuwaa been sheegi maayo anugu hal qofan u helinaya hal qofan qabiil la'ahay ma jiro oo yaan qabiil la'ahay anigu yaan qabiil la'ahay qabiilkaygu waa Soomaali baan ahay koshid baan ka ah qabiil kale ma lihi cidaan ugu helinayo qabiil lama jiro kulli madaxdaydu waa isugu mid kii xunna waa sheegaa waa dhaliila shacabkan tusaa iska kiciya kuma daharaada iska celiya diida baan leeyahay kii fiicanna waxaan leeyahay hore u soco horay noo wad hogaamiye horay noo wad khayr allaha ku sii garabkaagaan taaganna waa ku taageeraynaa horay u soco waa tabnigaas aniga sheekadaydu ummadda Soomaaliyeed carruurtii baa la qalanayaa badihii waa la gurtay buurihii waa la dhammaystay nimcadii waa la dhammaystay dhulkii waa la qotay ciiddii waa la qaatay war carruurtii baa hadhay carruurtii yaryarka ahayd oo sabiga ahayd oo saqiirka ahayd baa hadda la daldalhayaa sidii mataqaanaa buurahaas looga daldalayay dahabka carruurtii baa la daldalhayaa shacabkii mudaharaadi mayo hooyooyinkood mudaharaadi mayaan aabbayaashood mudaharaadi mayaan
shacabkoodii walaalahoodoo la dhashay u hilin mayo ilmaha saqiirka ah oon xoogga lahayn oo sabiga ah oo xoogga lagu maqawninayo oo xoog inta loo qaato isagiyo oyoyoyoyoyoyle dalaq meel inta lagu siiyo keliyaha lagala baxayo ila xoogu isaga celiya ma laha waa miskiin aan xoog lahayn xoog hadduu leeyahay lama qaateen ilmahaas yaryarka aan xoogga lahayn ee xoogga lagu kacaysanayo ee awoodda loo sheeganayo shacabka u mudaharaadi waayey khayr alla idinma siiye khayrna idinka sugi mayno kabisa 3 bilood baanu ku hayna war mudaharaada war xalana ag dhoobta war madaxtooyada ag dhoobta war cumar finish ag dhoobta 3 bilood baan ku hayna nag waa soo taagan yihiin war maxaa nimankan ku dhacay war shacabkan baas maxaa ku dhacay kuwa dahabkoodii baa lagu hor daldalahaya oo carruurtoodii baa lagu hor daldalahaya oo saciirkii baa xoog loo sheeganaya oo cunug walba halkaas afweyntaa inta cunug nin xoog loo ku dhago ama naag miskiin ah oo 3 jir 4 jir 5 jir 6 jir 7 jir ah ya saa u laalaadinahayaan saa sidii waxa rid loo sido saas cunugii markaas ya ila xoog male isaga ceshay war damiirka maxaa idinka qaaday war ilmaha xooggaan lahayn u hiliya war ilmaha dadka iska celin karin u hiliya war ilmaha sabiga u hiliya war waa futurekeennii waa mustaqbalkii waddanka war shacabkow kaca war ilaahay ka baqa war dhiig isu yeela war damiir isu yeela war ka gilgisha waxa ay mucaarad ku samaynaya carruurta waxa qalanaya waa mucaarad oo carruurta keliyaha waxa kala baxaya waa mucaarad oo carruurta waxa mataqaanaa gabdhaha kufsanaya waa mucaarad oo waxa tuugada ah waa mucaarad yaa waa qarandumiska waa qarandumiska jaajuusiinta waayo wadamada ilmaheenna keliyaha kala baxaya jaajuusiinta u shaqaysa nimanka mucaarad la dhahay mucaarad maaha waa maafiyo nimanka maafiyada ah ee mucaaradka la baxay baa u shaqeeya dowladaha carruurta keliyaha ka guranaya nimankaasaa u shaqeeya nimankaasa shaqaalaha shacabka dadka masaakiinta oo barakacayaasha iyo kolla dhuuqyada iyo kuwa ciyaala suuqan waxba haysan oo baahida baabi'isayoo dadkii xooluhu sanadihii hore soo dhaafeena magaalooyinka isaga nool oo sursuurta ku nool oon cididabina u ahayn oon guri ay galaan lahayn oo waalidkood baadiya ay uga soo carareen ciyaalkaasaa la adeegsadaa $2 baa la siiyaa ama $100 waxaa la dhahaa soo qabta ciyaalka gura ma nahayaan si waa dib jire ma dib jir baa nahaya ninkii reer guri ka soo toosay hooyo ka soo toosay waxbarasho ku jiro oo dugsi la geeyey oo future haysta carruur xadi mayo $100na walaalkii ku qaadan mayo waa ilmaha dib jirka waa ilmaha barakacyaasha oo magaalada iska wareega waa kuwa kabaha baalasha waa kuwa baabuurta dhaqa waa kuwa derbiga cid u dambina aan la arag bay adeegsanayaan waxa adeegsanayana waa nimanka mucaaradka ah cid kale maaha mucaarad bay la baxeen laakiin waa maafiyo qarandumis wey waa nimanka maxaa ku baxay war marka shacabow inaad iska celin weydaan niman idinka ciyaal idinku dhex jira oo dad dhalinyar ah oo idinka idinku dhex jira carruurteennu inuu saa u boobaya saa inta dowlad goboleedu hawshaas lugtay kula jiraan baarlamaanku lugtu kula jira wasiiradii hore qaar baa lugta kula jira oo magacyadoodii diiwaanka la soo geliyey naagta hana abuukar la dhaho xamar waxay ka tahay naagta ugu weyn ee mataqaanaa iskaashatada tan carruurta xadaysa oo kaliyaha la guraysa naagta ugu weyn waa hana abuukar waxa dadka shaqo gelinaya waa hana abuukar waa carruurta wax aruurinaya waa hana abuukar carruurta guri weyn baa lagu aruuriyaa inta fayowna xalanay u didhaa baabuur bay saadhaa qufulan oo ay ku qoran tahay bahalkii iikeen UN taariga waxaa ku qoran xalana kambaniyaasha degan inta kalena hooyooyinkooday ka gadataa 500 bay siisaa oo aan la qali karin oo caafimaadka aan haysan organkooda uu jiran yahay hooyooyinkooda 500 bay ka siisaa hana abuukar xamar ha laga qabto waxaan halkan kala hadlahayaa gudoomiyaha isdhexgalka bulshada gudoomiyaha iyagii sharafta badnaa baan halkan kala hadlahayaa xamar ilaahay hadduu ku nabadgeeyey carruurta kaliyaha laga guran haya awalu shaqo ka qabo shaqo kalaha qaban gudoomiya ismaaciil gudoomiyaha iyaga sharafta badan oo isdhexgalka bulshada professor ismaaciil waxaan leeyahay carruurta u gurmo kollayba waxaad london uga tagta carruurta inaad u gurmato gurma degdega arrintaas noocaasa
culayska saar jidadkaan lahayd waa furahaya waa la furo ra'iisul wasaarihii baa furay caruurta u gurmo geed dheer iyo geed gaama bafuul arrinta fashil meel walba qayla dhaangee isna taxadar allah ku xafido taxadar ilaahay ha ku xafido adowgana allah kaa xafido afduub wax ay dishaa ma laha afduubna ma joogta xamar nimanka waxa weeye mucaaradka waxa dadka baabi'inahaya waxa mataqaanaa dilka qorshaysan samaynaya waxa miinooyinka inay qarxiyaan isku dayahaya waxa caruurta kalyaha ka guranahaya waxa barnaamijka gabdhaha yaryarka qabsadoo dila oo saqiirka dhahahaya intaa dowladda lagu magac xumaynaya intaa maxamed cabdullaahi farmaajo lagu dhaleecaynaya shacabkaa la rabaa in looga horkeeno shacabkaa la rabaa inay mudaharaad ku qaadaan shacabkaa la rabaa inay madaxtooyada dhoobtaan oo dhahaan farmaajo dhac farmaajo down farmaajo down wax kale oo caruurta yaryarka oo sabiga loo ciribtirahayaa ma jiro waayo kursi bay ku waasheen majnuun waaye nimanka mucaaradka waa majnuun gobol walba waa joogaan gobol kasta hadda hawsha waa ka socotaa gobol kasta waa ka socotaa afka Puntland iyo afka Kismaayo waa ka socotaa awal reer waqooyi baa ku caruur waayay oo ku dhammaaday 2000 baa reer waqooyi ku bilaabatay iyaga fidmada dhan ay ku bilaabatay nag baa iyaga laga dhigay caruurtoodii markii la soo dhameeyay yaa waxa la soo aaday dhanka kan iyo bartamaha iyo Puntland bartamahay ka mid tahay waa bartamaha Puntland ilaa maxaan ku iraahdaayay koonfur oo dhan yaa la soo aaday ma garateen 30 sano baa arrintaanu socotaa waxay bilaabatay 1993 bay bilaabatay 180 cunug oo u horreeyay iyagoo yar 10 jir u weyn yahay 2 jirna u yar yahay yaa markab lagu qaaday diyaarad laguma qaadin markab baa lagu qaaday cali mahdi baa wuxuu ka gatay meesha la yiraahdo talabiid reer yuhuudu ka gatay 180 wiil soo fakaday baa 2004 sheegay niyuusyada laga soo daayay wix maqlay waa maqleen waxaan maqlayna ma maqlin dhagahaygan ku maqlay anigu wuu soo fakado ana la xanaaleeyay buu yiri waana la dhaqaaleeyay buu yiri college baa nala geeyay buu yiri afka yagi baa nala ka bedelay af yuhuud baa nala baray ingiriis baa nala baray carabi baa nala baray ciidamada nala ka dhigay ciidanka CID ga qaar baa galay qaarna waa ciidanka militariga ah oo toojar garaynaya Falastiinka toojar garaynaya waa walow aad loo ilaaliyo marka waxa weeye 93 bay bilaabatay caruurta in la daldalo oo la toogto oo la qasho oo dibaddana loo iibgeeyo ayaga baa la iibinaya South African maalin suuq waxaan isugu nimid magaalada Victoria gabar Soomaaliya oo gabdhahayga aan laga aqoon gabadhii baan salaan 7 anoo jira xamar layga soo xaday bay tiri Itaaliya la iga geeyay ninkii i xaday oo Itaaliya i geeyay baa wuxuu soo South Africa habaran baa iga soo gadatay oo habartan aan la socdaa isoo gadatay 7 jir baan ahaa bay tiri hooyaday waa aqaan aabahay waa aqaan xaafadan deganay walaalahay dariskaygii habar yarahay kulli abtiyaashay waan garan af Soomaaligiina waa nagula hadlaysaa isagoo gaja xamar baa diyaarad la iga soo qaaday oo la iga soo xaday oo reerkiinu ma ku ogaa maya gabar inanaha isoo kaxaysay oo naagtaana hotel joogta nin hotel jooga ii keenay ninkii baa Itaaliya i geeyay naagtaan bay tii South Africaanka Itaaliya iga soo gadatay oo de qaxooti baan ahay maana wax u qaban kara naag cadaana wadato taajirada maana wax u qaban kara qaxooti baan waa Victoria gabadha kula kulan aniga gabdhahay marka 93 baa la bilaabay 92 iyo 93 iyo gaaladu waa daldalanaysa caruurta iyagoo nool bay daldalanayeen qalliinku hadduu yimid qalliinka waxa keenay mucaarad si ina farmaajo inta u gelgasho kursiga uga dhaco oo markuu ka dhaco ay ku fariistaan war may garatay war may la socotaan waxa weeye ilaahay hadduu idankeeda leeyahay arrintaas aad baan uga xumahay aad iyo aad baan uga xumahay waxyaalaha maaragtay hadda maaragtay dawladda lagu dhaliilahayo shacabku ku dhaliilahayo annagu aan ku dhaliilayno bay ka mid tahay laakiin hadda waxaaba ka aakiba nin Soomaali ah oo magaalada kula degan oo wadanka kula degan oo hadduu rabaaba maamulkii iyo dawladdii ka shaqaynaya ama ciidan ha uga shaqeeyo ama degmaha ka shaqeeyo ama city councilka ka shaqeeyo ama gobolada ka shaqeeyo dawladdii federaalka baa wadanka xukunta wadanka dhan dawladdaas xukunta hadday gobol tahay iyo hadday caasimadda tahayba dawlad wadanka iyada u ah dawladda dadkii farqaha ka baxay ee muxuu ahaay inta la shaqayn lahaa ama gobol ha jooga ama caasimadda ha jooge hadday iyagii tuugan yihiin oo dawladdii ceebteeda raadinayaan oo dadkii ku dirayaan oo qofkii Soomaaliga ahaa loo baabi'inayo ama loo qalayo ama loo dilayo in farmaajo lagu xumeeyo
qadiyaddu meeshay naga tagtay day soomaaliyay ba war meesha qadiyaddu naga tagtay day marka waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ummaddan soomaaliyeed ilaahay ha u naxariisto waxa weeye halaag iyo hoog iyo ba' bay ku suganta 24 saac waxaad arkaysaa wax aan indhahaagu qaban karin oo aadan maqli karin oo naxdin kugu dilahaya oo aad leedahay ilaahayow rabbigayow xaggee baad soomaali ka aadaa inaada sheegan magaca soomaaliyeedba inaada sheegan baa kugu soo dhacaysa war nin gabay cajiiba tiriyey oo aan meelahan ku soo diyaarsaday baan la ahay oo aan idin dhegaysiin lahaa iyaa waa la ahay ninkaas waxa weeye marka wadaninimadu cayaar ma aha wadaninimadu qofka bini aadanka ah wax uu uga fiican yahay inuu wadani noqdo oo waddankiisa maaragtay uu u dhinto oo waddankiisa uu ka gilgisho dhibaatada taalla oo mataqaana uu ka xumaado ma jirto laakiin wax walba waa arkaya mana ka hadlayo waa arkaya ficil samayn mayo waa arkaya ka qaylin mayo ka xanaaqi mayo war impossible waay war wax aqliga geli kara maaha war waddanka idinkaa leh war magaciinba war dahabki waa la daldalayaa war waayay ninkii waxa waaye ninkii wuxuu ahaa socdaal miyo wuxuu ahaa war nin gabay cajiiba halkan kusoo tiriyo murug aan u hadhow baan helahayaa markaan lifeka ka baxo shiid maan maxaan ku falayaa markaas allahu akbar nata wararkaaga mahay warkuma xige waan waayey gabay cajiibah baan idin dhegaysiin lahayo ilmaa iga timid maanta oo dhan baan dhegaysanahayo waan ooyahayo yaa war ma weynaan arkay war adduunka rogmaday ma weynaan arkay war waxa dhacayo ma weynaan arkay war dowladda jabtay ma weynaan arkay yaa silic iyo hoog iyo ba iyo hantoole ilaa 91 baan ku jirnay soomaaliye ilaa 91 maanta wax kastoo aan soo marrayba waxaa nooga daran carruurta xuxunka ahoo nala ka daldalayo oo la qalayo yaa baaq dowladdu ma soo saarin madaxweynuhu ma soo saarin ra'iisul wasaaruhu ma soo saarin wasiirka arrimaha gudaha haddaa la magacaabay eedba ma laha baarlamaan kama hadlin cumar finish kama hadlin ilaa isagu waa sinti kowsalkii dhammaae ya waa duqi magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka ee waddankoo dhan uma hoos imaanayo inta dowlad goboleedu isagay hoos imaanaya war maxaa ku dhacay war shicibkii kacay war ciidamadii hadlay war carruurtan baa siyaa dhalay miyayna carruurta soomaali ahayn aad iyo aad baan arrinta noocaasa uga xumahay waxaan kaloo ka xumahay reer puntland oo dheemankoodii iyo dahabkoodii saa loo daldalayo aan hadlayn dhagalii indhalii way iska indha tireen dhagihiina waa ka furaysteen suuf bay gashadeen ma garanaysaa 4 nin oo tuug ah oo aaranjaan iyo dani ah baa saa ugu baarqabaynahayaan saasay ugu baarqabaynahayaan saas ceebtoodii weligood ay ku dhex jireen bay maanta soo saareen inayna muwaadin ahayn reer puntland waa soo baxday shacabow idiin qarin mahayo wax waad u safan tihiin waad u aaminsan tihiin qofku marka ku xumeeyo oo ku dilo oo ku caayo oo ku xumeeyo qofka la jooga hadduusan dhihin war qofka dulanka ka daa war dulanka iska daa hadduusan dhihin raalli buu uga yahay waa u aamusteen marka all reer puntland waa isku mid reer jubbaland baa idin dhaama say 24 sac miidiyaday taagan yihiin axmed madoobe ma rabnooy axmed madoobe waana baabi'iyaye qabiil buu nagu hayaaye wuuna kala firdhiyaye saasuu same reer kismaayaa idin dhaama waana idinka wadanisan yihiinoo waa loogi waxa qadiyaddaa idin geeya waa qabiilkii waa kaasa halkaasuu idin dhiga qadiyad wadaniyadeed ma leh reer puntland walaa shacab walaa maamul ma kala jeceli 2 sano baan waa waray war waxa iska qabta aan ku hay waa kaa dheemankoodii lagu hor daldalanayo dekadoodii la qaatay malaygoodii saa loo xaraasahayo waddankii la boobahayo isima hadlayn isimababa jiraan isim puntland ma laha absolutely hal xabo isina puntland ma laha carg waa qofkii igu dhaha puntland baa isin leh waa keedee
محوية إسن كحبالان ونبعتها دعيسة سحر برركة دابك اللي قريو بدها اللقاتي دكدها اللقاتي إسن كهلين محوية ببوستي أحمد وكلا إسن من قوميات لأنه سمدح كاهين بدلان إسن ملها علمانا ملها شعبنا ملها مامولا ملها كبساء ما أنت الصومالية يدا وليدت شق بات كقاضي بدلان مركي لقاقا صدر خبارات بلايا وخبارات ومدحو إذن فارها يوانا هل كان كسو دين كريم بس على يبسو قد بيساس ما بسو دين كرابا ما بسو دين كرابا وحن بن آدم توسي كرابا معها وحا كسو عدا بدلان قد هيد آرن كان إيا الدني أي كسمين إيا أفكار دادك سبب مرسانا هيا هيرك دادك اللي قلانا هيا لا يا حقيبي لقا قلانا هيا حقيبي لقا قلانا هيا حقيبي آرن كان موي واحد دادك قلانا هيا وآرن كان بقلانا هيا ما بدلان بعرور لقا قلان جري آرن كان بقلانا هيا كليها لبحي ذهبكي بدي دكدي كليه كل يقعس أفكا كشضي شعب كينا وابا شعب كبدلانو عندها بيلا دقاها بيلا قبيالات با دقاها إذن كبتناي قبيالات با عندها إذن كبتناي إمسان إذن كوهي واقع إمسان إذن كوهي open the eyes ورمسان إذن كوهي ورمقار هالكا سو تاقنا ورمحا شعب يوكو قدعي وركقل قشة ورقول ما ولا قل قشة كقل ورسك تورة دين وردني يا أرن كان تورة وكأدكتين تورة شهاد يا مؤمنين كقاض هاي شعب كحمر روحان له إنها يبدأ نقود بالله يدين ترو عرورتي نبى هورتي نلقوا بهيا رجي نبى دل قشة سن القود لهيا وأنا معارك وحسبيني كمان بالظهر هذا يسان قريو ده واتقنا هرنو بان ميسان إسكعلين ميسان دولة دعوة ميسان دولة أيده oo hawsheedii gabtay oo dhaliisha iyadu leedahay haddana ku hor mudaharaad naga qabta dadka mataqaana dadka naga qalanay madaxtooyada dhoobta shacabka muqdishaan sheegaya dhoobta madaxtooyada maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maxaan ku iraadaa maxamed xuseen rooble hortooda dhoobta wax ii kaloo idin difaaca ma haysataane bal isxasuusiya inay arkaan boorarkiina madaxtooyada hor dhooban war maxay rabaan caruurtayadii dhammaatayay dowladii caruurtayadii dhammaatayay dowladii caruurtayada dhammaatayay ma dhahda war maxaa afka idin haysta war shacabka Soomaaliyeed maxaa ku dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhiigayana isku karin ummadan anigu malihi ilaahay maale laakiin dayac ba haysta ilaahay isdayac ma oran ilaahay isdila ma oran ilaahay tuugada qarsada ma oran ilaahay diinta ka weecda ma oran ilaahay aniga i caabudu jiri عرور كليهدا إن لقرت عابدو الله مقرن دين باي بنقطة إن عرورت كليهدا لقرت قبلها لقبصده دين باي نقطة أيضا فرماتش لقوا حمايني فرماتش هذا لقوا حماينها هي ورقت صوصار هذا لقوا حماينها هي مدح وينه ورقت صوصار مدح وينه ورقت صوصار ها صوصار ورقته هل عنق هدي مقالة حمر لقحده بولسكا وقولنده أفر إشانية تمنك الدقماء حمر قدومي يهودا وقولنده قدومي عمر فينش ما أقولنده وسير كارمها قدها أقولنده عيدا كبوليس يسلمت أقولنده صار شال مدح وينه صار وريكتو تشا وقطو مرة معارض كي قبل كون راعيان مرة عروضة دي على ضلضالها هي مرة ما دعوون ايان مرة دولة دعوون ايان والدولة هذا والو دعوون هذي كو قران ويدو يريد هذا على النبطة والله استوسا والدولة استوسا والعروضة نبات الدولة استوسا هذا ريح حمرتين واي ودتك حمر يا قاقار كذا تشوقه كو بدلا صماها نجح وقصار نجح دني نجح وقصار كليه عدا يدكم بلودان يا قبليه لقب سنة هذا سنة كبركم يسووا قبصة يدكم بلودان كهر ما تشيرين absolutely ده كده كليه كهر نلقى يا بالله بدل قدل دلان هاي لكن بورها ولا قدل دل تشير بورها دام كولا دل تشير تيفر ولا بلودان تيفر ولا دل هاي عبد الولي القسطيسي بورها قلقلها القدل دلهي حلو يسوي هيستي هذا دري بوريه وحو دعي متقنا قلقلا انت كلم ما يوحو دعي بوريه المدو يا سناك يا هيلان ما ينفع يا مركز ري بدلا خير بيد رأيه خير متقنا قل مدوق يا ملقاتاي xogaa qoladaas sahro oo sakhiran balaayo waxay ka dhacday waa Puntland iyo Muqdisho waa labada meelood oo mucaaradku saldhigga u ah mucaaradkay saldhig u tahay meelaha baaxayta galmudug iyo mataqan Soomaali koonfur ma dagana mucaarad
sheekh sakiin baa hadda yimid baydhabo caryay ka bilaaban kufsi iyo caruur qalashow caryay hadda sheekh sakiin sooma u imaan hadday baydhabo ka bilaabanaysaa okay waxa weeye marka dad yahow ilaahay ka baqa dad yahow ilaahay ka baqa xaqdiga iska daaye qabyaalada iska daaye nin jeclaysiga iska daaye dulli wixii aa iska dulqaada wixii wanaagsanna la shaqeeyo wixii wanaagsanna taageera wixii xunna rida dhagax ku rida dhagax assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasaan uga baxayaa caawa khudbadaydii ahayd carruurta ha la badbaadiyo dhinac walba waa ka hadlay aad iyo aad baan dhinac walba uga hadlay dee inti garaadkayga ahan hadlay anugu waxaan garaadkayga ahanna ma keeni karo wax aan qof ka soo maanguuriyey iyo wax aan meelo ka soo qaatayna ma ku hadlin aniga maskaxdayda wixii ka soo maaxday oo aan ka xumaa waddankayga waxa ku dhacaya aan ka xumaa keliya unbaan ka hadlay marka waxa weeye maalin walbana waa ka hadlaya haddii ilaahay fursad ii siiyo enerjigayga idinkaa iskale taageeradayda idinkaa iskale waxa weeye waxa xun oo dhan waa ku dhawaaqaya shacabkan anigu la hadlaya dhallinyarada soomaaliyeed baan la hadlaya waddanka mustaqbalkiisu waa idinka madaxdii berri baad tihiin iska qabta daaqusyada 70 jirada ah wax allaaliyo wixii 60 jira shaqo lama siin karo wax allaaliyo wixii 55 sano jira shaqo lama siin karo inta ka hoosaysa waddanku ha ka shaqayso absolutely 70 jirada maskaxdii isku dardarmatay beeshin guryahooda ha u aadaano xafiisyada ha noo banneeya baarlamaankana nin 40 ka weyn lamaba soo qori karo lama soo qori karo ilaahow rabbiyow isimada gacantooda naga bix ilaahow rabbiyow 4.5 naga bix ilaahow rabbiyow doorasho dadba naga bix ilaahow talada mataqaana imaaraad baa baarlamaanada iyadu ku dhismaan ilaahow maanta kaayagii ha ka dhigi maanta maba ku dhismahayaano maxamed cabdullaahi farmaajo joogo imaaraad iyo kenya baarlamaan qof ka socda dareen iyo dekrisyoona ule xasan sheekh bay awal ku soo gurteen ilaa iyaga xukumay maanta kama baqahaya aniga laakiin nin weyn oo tuug ah ha noo soo qorin wiilasha yaryarka iskuulaadka ka soo baxo weliba waddanka ku dhasho ku koray oon diyaasbar ahayn ha laga dhiga xildhibaanada waddanku waa badbaadahaya maxamed cabdullaahi farmaajona waa noo soo noqonaya insha allah xukuumadda iyada hadda dhisan waa noo soo wada noqonaysaa kolligeed ha noo soo noqoto baarlamaankana halka gabaroo aan magaceeda aana sheegayn ha laga reebo inta kale ha la warjaafo waa baarlamaankii ugu fashilaad badnaa walow kii hore ay dhaameen kii sagaalaad bay dhaameen iyaguna xoogaa farmaajay iska dhidhisahayiin baraka male waa tuugo weeye waa tuugo micigaroora ah oo korokodhaalla ah oo saar noo liqaysaa oo raba inay 7 kun ku qaataan bil walba bishaarka dadka masaakiinta carruurtooda la daldalanayo halkaa qoraxdu ka daloolisay habraha halkaa qoraxdu ka daloolisay khayr badan baan idinka tagahayaa ilaahay idankiisa intaasaan uga baxayaa khudbadaydii khayr badan allah idin siiyo waxaan idin leeyahay cafa alla iyo masaabax anigu mucaarad nimaan ahayn wax kama sheegayo taraytara iga magangelaya